maxaa laga sheegayaa uu yiri fanni shardiga ugu horeeya uu yahay tadhiirul qalbi bil kulliya amma si wallah qalbiga oo laga nadiifiyo wixii ilaahay ka soo haray waa shardiga ugu horeeya uu yiri tasawufka cilmi sidaas maxaa laga sheegayaa hadduu qofku arko marka qof shareecadii aan ku dhaqmaynin awaamirta ilaahay iska fududaysanaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam awaamirtiisa fududaysanaya haddana dhahaya anugu suufi ayaan ah ولذلك وحو يراها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى كتاب كيس اللي يرى المنقذ من الضلال وحو يرى فماذا يقول القائلون ذاتك وحدها وتصوفك وحكا الشيء محي كليه يري في طريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى المحل لك الشيء يري فني shardiga ugu horeeya uu yahay tadhiirul qalbi bil kulliya amma si wallah qalbiga oo laga nadiifiyo wixii ilaahay ka soo haray waa shardiga ugu horeeya uu tasawufka cilmi sidaas maxaa laga sheegayaa waa shardiga ugu horeeya wuxuu yahay qalbigaas inuu la dagaalamo oo laga tadhiiriyo amma si wallah wixii ilaahay ka soo haray ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله شروطنا التصوف وحكمه يرسلا حرشد الصلاة بأيسا أنسحين إلا الله أكبر إنه يرامويه صلاة قفك وما أنسحيس ساسوك التصوف وما أنسحيه إلى قلبك سأكبوحيه عظمة إلهي ذكرك إلهي والشرط التصوف علم ساسا محال لك به كرامه ما أنصحه وتصوفك ما أنصحه أنت قلبك كجب وحان والصق إلهي وصنها لك أهل مركب حال قال يهوري علم السلاسي هاي هدو قفك أركو مركب قف شريعتي أن كل رقمين أوامرت إلهي إسكفوا الله سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أوامرت إسكفوا الله سنة هذا ندها هي أنو الصوفي أيانا دي مركز أيضا وحا إسكال الشخصية لكن تصوفك بريو كيه marka waxa laazim in la kala saaro manhajka iyo qofka manhajka tadbiiqinaya farqiga u dhaxeeya qofka manhajka tadbiiqinaya dhahaya manhajkana raacay qofka wana khaldami kara ceebu yeelan kara manhajkana si sax ah ugu dhaqmi kara laakiin manhajka hadaan ogaanay inuu saxan yahay oo usuushiisa ay tahay kitaabka iyo sunnaha markaas adiga dadka kala miisaamaya qofka haduusan shareecadii ku dhaqmaynin haddana tasawuf uu sheeganayo fatasawufu bari' minhu isagana eedda qaadaya shakhsiyadiisa laakiin tasawufku ma qaadayo eedda waana islaamka oo dhan sidaas wax tasawufka khaas ku ah ma qaacidadan aanu sheegayno tasawufka khaas ku ah ma aho diinta islaamka oo dhan sidaas kam imisa islaamkii ku been abuuranaysa wadaa anigu muumin xaqaan muslim xaqaan laga yaabo inuu khamradii iska cabay وليه هذا مسلمان مؤمن توصلنا لقى يابو إنه ماركتاه توجيه لقى يابو إنه ضدك دعي ضدك إنه دلي وهذا الدين الإسلام كونسبة شيء قال قف كاس مده إن هذا نورجنا قف خمر عبا زين سنة ضدك اللينا يه وده يعني مسلمان هاي متدين الدين تهايسته مده إن الإسلام كي يردن كعو أنك عرفنا الدين الإسلام ومحنو عرفنا قف خمر عبا يان أرجنا أو نسبة شيء قال الدين الإسلام ولكن الدين الإسلام هو إبر ميندهنا مدهين قف كان شخصية دي سن أيدين إنه لأنه هو خلطان تاي دين الإسلام كون نسبة شيء جنس لكن الإسلام كشرف بري كتها قف كوا قاعدة عام الإسلام كون عام كوا واحتصوف كجار كوا ما قاعدة قف مدعي الضائفة كستو كجرا قف البوحس كشيء جناي ضائفة كست وكل حجرا الإسلام كو كجرا